kor u kaca dhaqaale ee aan sanadkan gaarnay waxaa sabab u ahaa inay dawladdu la dagaalantay musuqmaasuqa iyo hufnaan la'aanta waa xaqiiq in hay'adaheena dawliga ah ay jilicsan yihiin oo tacbaan ay yihiin waa xaqiiq inaysan ammaano jirin oo dad naga mid ah ay musuqmaasuq ku kacaan waa xaqiiq weeye waxaan sameeyey safarro aan ku tegey dalalkaas dariska ah waxaan si dhow aan uga wada hadalnay inaan wada jir maxaan ku rahdaa uga hortagno dhibaatooyinka soo wajaha gobolka waxaan uga digayaa waddamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed si siman waxay dawladda Soomaaliyeed على كلا شقي dhinaca kale waa maasantihiin xoogaa dhan farsamo iyo wax nooga hadlaabeen raali ahaada dadka Soomaaliyeed waa dad damiir leh dad raqiisa ma aha dad qiimo ku fadhiya ma aha waxaa fursadan waxaan ku faraxsanahay inaan maanta oo ay kale anigoo u gudan kuwa ku dhaawacmay inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah u siiyo ayagoo si geesinimo leh la shaqeynaysa iyadoo la shaqeynaysa ixtiraamka sharcigu dhiigoodana noo huri jireen iyo waliba inaan wadamada deeqaha bixiya